shirka mawduuciisa waxa ugu waaweynaa la dagaalanka maxaa la yiraahdaa musuqmaasuqa oo ahaa sanadkan theme-ka ama mawduuca sanadkan waxa kaloo iyaduna muhiim ahayd oo shirku ku saabsanaa qorshaha dib u habeynta midowga Afrika sidii lagu gaari lahaa hiigsiga 2063 Afrika inay dadkeedu noqoto kuwa ku nool bashbashii barwaaqo marka madaxweynuhu arrimahaas oo dhan buu ka qayb galay oo hadal ka jeediyay midda la dagaalanka musuqmaasuqa wuxuu tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay ugu horeyso oo ay dejisay sharci la dagaalanka musuqmaasuqa wuxuu kaloo madaxweynuhu taageeray barnaamijka dib u abaabulidda ururka midowga Afrika barnaamijkaas oo hogaaminayo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame oo haddana ah gudoomiyaha ururka midowga Afrika sanadkan madaxweynaha wuxuu la kulmay madax badan oo dalalka ay ugu horeeyaan kuwa dalalka geeska Afrika sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia madaxweynaha Djibouti madaxweynaha Uganda madaxweynaha Sudan iyo madax kale wuxuu kaloo la kulmay madaxweynuhu xogeyaha guud jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa wuxuu la kulmay madaxda European Unionka nin commissionerada ugu waaweyn mid kamid ah wuxuu la kulmay madax kale adduunka ah shirka waxa ka soo baxay waxa la ansixiyay go'aamadii ku saabsanaa mawaadiicdii shirka lagaga hadlayay